السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داوديال ميلو بدونida daafeedan naga daawanaysan halkan oo barta akulan YouTube-keena Family Lifestyle hadii tahay boqoshada ugu horeysay waxaan si naxariis kalgacal walaanimo ku dhihanta kaaga codsanaya maanta inaad ugu soo biirto channelka subscribe inoo saarto gambaleelka on ka dhigo muuqaalada update-kan halkan soo gelino si sinaba ku dhaafin hadii aad hor nooga mideen waxaan si xushmad la kaaga codsanaa muuqaalkan mar alaala markuu ku soo gaaro ina lacagta sidaas u saarto si uu baaho intuu badan bulshada Soomaaliyeed oo gaaro hooyo qaali maxamuud guhaad ah oo hooyo Soomaaliyeed ayaa waxa ay baadigoobaysaa gabadheedii muddo 16 cisho ah hooyadaas oo ku nool dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ayaa waxa ay sheegtay gabadheedii in muddo ah inay taleefanka ka soo waceysay laakiin taleefankeedu ahaa mid dansan ugu dambeyn waxay si toos ah ula soo xiriirtay gabadhii gurigeeda ee deganeed gabadhii ayaana sheegtay in gabadheedii la baadigoobayo muddo 16 cisho la yahay hooyadaas ayaa waxay u soo ambaxday magaalada Muqdisho balse gabadheedii u baadi goobto hadaba gabadhaas ayaa la sheegaya inay ka shaqeynaysay Allahu naxariistay xafiiskii engineer Riso gabadhaas ayaa dalka dibadiisa wax ku soo baratay kadibna waxa ay go'aansatay bal inay dadkeeda iyo dalkeedaba ay wax tarto wixii ay barataan anfacdo ay wax uga faa'iideyso hadaba 26 June 2:03 markii ayaa la sheegaya habeenimo inay gabadhii ka ama baxday gurigeedii ayadoo uu waliba sidata laptopkeedii telefoon ayaa u soo dhacay kadibna banaanka ay u baxday gaariga ee raacdayna waxa qabatay isla kaamirada guriga ee deganeed ee ku xirneed hadaba waxaan halkan idinku hayaa isla hooyadeed oo ka sheekeynaysa kana warbixinayso halkaan nagula wadaagayso qaabka gabadheedii loo afduubtay ee cidda sida gaarka uga dambayso ayaan jecelahay inaan halkaan si wada jir ah aan uga daawano anigoo qaali maxamuud guhaad ah waxa iga maqan gabadheydii ikraan tahliil faarax ikraan dictor tahliil faarax gabadheydii 16 cishaan la ahay aniga waxaan deganahay dalka Turkiga magaalada Ankara gabadheydii markaan soo wacoon waayay waxaan weydiiyay gabadhii guriga deganeeday oo guriga ay degan tahay lahayd waxay tiri gabadhii waa la'nahay way maqan tahay waxay maqan tahay 16 bari maalinkii Sabtida oo 26 bisha ay ahayd June 2 saac habeenimo 2 saac iyo 3 daqiiqo gabadhii baxday oo iyadoo laptopkeeda wadata guriga ka baxday gabadhii ayada iskama bixin kolba dantay u baxday qofkii ay isku aaminto qofay taqaano u ahaa oo qaaday gabadhayda waa gabar yar oo wax barato wadankan inay shaqo ka qabsato u timiday gabadhaydu nimankaas iga haysto iga wateen baabuur la yaqaano maxaan ku dhahay loo jeedo anaka kaamira hadda aan xogta hayno ba gabadhiyo raacaysan hayna baabuurku wuxuu ka soo galay kilometer 0 iyo Global Hotel dhexdooda meeshan deganah gabadha degantahay intaas dhexdeeda baabuur soo galay waa baabuur amni ah waa baabuur la yaqaano waa baabuur gacanka uu soo daayay dhammaantood waxaan ka codsanayaa aniga hooyo ahay cunugeedii maqan yahay gabadheydii waa gabar wax baratay oo dalka iyo dadkeeda wax u soo baratay gabadheydii ma haayo gabadheydii intaasay maqan tahay waa gabar waxaan ku tuhmayaa nimanka nabad sugidda gabadheyda biliis ummadda Soomaaliyeed oo magaceygii muuqayga taqaano halii gurmadaan u baahanahay waxaan codsanayaa gabadheydii meel alla meeshay ku jirto dawladda inay iiga soo bixiso gabadheydii xaqdaraa lagu watay gabadheydii xaqdaraa lagu haystaa gabadheydii biliis gabadheydii waxa liiga qabto madaxweynaha uu eedo imaqlaayo waxa ka qabto ra'iisul wasaare Roble waxa ka qabto ha ka qabto maxaan ku dhahay wasiirka oo cadaaladda maxkamadda garsoorka gabadheyda gabar la aqoon waaye ma aha gabadheyda waxay ka shaqeynaysay xafiiskii engineer Riso gabadheyda waa gabar la yaqaano caan ahayd gabadhii waxbarasho iyo aqoon kororsi waxay u aaday dalka Ingiriiska markay soo laabatana waa kana dhibkaana lagu sameeyay oo gabadheedii meel lagu qabirtay saaka waxaan tagay maxkamadda ciidamada waxaan geystay documentiskaygi oo maxaan ku raadayay gabadheeda dhibkeeda aan ku sheegay uga hadlaay way iga qaabileen marka aniga wax in lay qabtaan rabo gabadheeda sida ugu dhaqso badan meeshii ku jirta laga soo bixi gabadheeda meel dheer ma jirto ma dhoofin baasaboorradeedii ana haayo wadankaanay ku dhex jirtaa magaalada Muqdisho meel laga galiyay halii soo bixi gabadheeda dawladnimo haday jirto
waxaa la yiraahdaa Yuusuf Maxamuud Gaad waxaan ahay gabadha abtigeed waxay naga maqan tahay 16 maalmood nolol iyo geerina kuma hayno waxaan qiyaasaynaa gabadhaas in ay naga jirto dhanka dawladda dhan kastay yihiin qofka bini'aadamkaana 24 saac wixii ka badan in la wareysto hadii uu dambi leeyahay la yiraahdo dambigaas uu leeyahay adoonsan lahayna la soo deeyo waxaan marka anaga aan sheegaynaa gabadheena inay si xaq darro ah ugu haysto waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka ah meel kasta ay joogaan in ay nala baadi goobaan gabadhaas Ikraan Taaliil Faarax oo aan ahay abtigeed annaga gabadha nimanka nala raadinaya gabadha iyaga naga haysto qoladaas gabadha naba sugida iyaga naga haysto iyaga ku tabayna gabadheena hana laga siiyo haday Soomaalnimo jirto ee dawlad jirto islaamnimo jirto gabadheena hana laga siiyo 16 maalmood nolol egeero kuma hayno waalidiinteedii aan nahay walbahaar iyo dhibaataan dish anagoo iska wada xanuunsan oo sokor qabro oo dhikar qabro iska wada dhibaataysan aan habeen iyo maalin hurdi hooyaad ka tagnay madaxweynaha aduu imaqlaayo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka ra'iisul baarlamaanka wasiirka amniga intaas waxaan ka codsanaynaa gabadheena inay cadaalad degdeg hesho oo gabadheena meesha ay ku jirto aan helno daawadayaal waxaan filayaa inaad muuqaalkii oo dhameystiran aad daawateen hadday tahay hooyadii hadday tahay abtigii iyo hooyadii kale oo halkaasi ka sheegay sida ay gabadhoodii ay u maqan tahay ee cidda sida gaarka ay ugu tabayaan in ay u xareysan tahay haddaba ilaa hadda lama yaqaan gabadhaasi jaani cirib meel ay dhigtay hooyada waxay sheegaysaa iyo abtigaba in isla dawladda ay ku maqan tahay gabadhooda isla dawladdii ayana waxay ugu cawdeen bal inay caawiyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inaad hooyada Soomaaliyeed aad u duceysaan in uu Ilaahay gabadheeda dib ugu soo celiyo ayadoo nabad qabta halkaas ayaana muuqaalkii ku soo afmeeraya waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka haddii ay tahay booqashada ugu horeysay waxaan ka codsanayaa inaad maanta nagu soo biirto oo channelka subscribe noo saarto muuqaalka la garay asxaabtaada la share garay aad iyo aad baad u mahadsantihiin muuqaalka xiga ta kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa